asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. daawadayaal kula wanaagsan, halkani waa daalacan media. xubinteena ugu horeysa waxaynu kusoo qaadanaynaa ciidanka mareykanka oo laga daadgureynayo soomaaliya ee dalal kale. madaxweyne xilka kasii degayo ee mareykanka Donald Trump ayaa la sheegay inuu doonayo inuu dhimis dheeraada ku sameeyo ciidanka mareykanka ee ku sugan qaar kamid ah dalalka caalamka. warbaahinta ayaa laga soo xigtay inuu Trump dhimi doono ciidankaasi kahor intuusan xilka ka degin 20 bisha Janaayo ee sanadka soo socda ee 2021. saraakiisha waaxda Pentagon iyo taliyayaasha ayaa la sheegay inay u diyaar garoobayaan amarka lagu dhimayo tirada ciidanka mareykanka jooga Afghanistan, kuwaasi oo haatan tiradoodu dhan tahay 4500 oo askari lagu soo koobi doono 2500 askari marka la gaaro bisha Janaayo 15 ee sanadka soo socda. sida laga soo xigtay warbaahinta, waxaa la rajeynayaa inuu madaxweyne Trump amro dhimista dheeraadka ee ciidanka mareykanka ee ka jooga dalka Ciraaq. waxa uu Trump hore u sheegay in tirada ciidankaasi la dhimayo bishii September ee lasoo dhaafay laguna soo koobi doono 5000 ilaa 2000 askari. dhinaca kale, wargeyska The New York Times waxa uu soo wariyay amar qabya oo sheegaya in ciidanka mareykanka ka jooga Soomaaliya oo lagu qiyaasay in ka badan 700 askari la rajeynayo in laga soo daadgureeyo Soomaaliya kuna soo laabtaan dalkooda hooyo. ayuu madaxweyne Trump wuxuu ugu codsaday taliyayaashiisa inay keenaan qorsho si ciidanka mareykanka jooga Soomaaliya looga soo daadgureyn lahaa, balse lama sheegin ilaa haatan in qorshahaasi loo gudbiyay madaxweynaha iyo in kale iyo xilliga qaadan doona ciidankaasi oo aan iyagana la shaacin weli. daawadayaal markale kulan wanaagsan. xubinteen waxaynu kusoo qaadanaynaa madaxweynaha Uganda oo la kulmay wafdi ka socda Ethiopia. madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni waxa uu bilaabay dadaal uu ku doonayo in lagu xaliyo colaadda ciidanka dowladda federaalka Ethiopia iyo kooxda TPLF ku dhex maraysa gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi. dagaalkaas oo bilowday bisha November 4 waxa uu sababay dhimashada 100 qof, iyadoo in ka badan 25 oo kalena ay ka qaxeen gobolka Tigray kuwaasi oo ku gudbay xuduudka dalkaasi Suudaan. Museveni waxa uu shalay guriga dowladda ee degmada Gulu kula kulmay wafdiga uu hogaaminayo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Ethiopia Demeke Mekonnen Hassen. kulankaasi waxa uu ka dhacay guriga dowladda oo ku yaala degmada Gulu ee bariga dalkaasi, halkaasi oo madaxweyne Museveni ka wado ulis doorashada madaxtinimada dalkiisa. hadal qoraal oo Museveni soo saaray kulankaas kadib ayuu ku sheegay in isaga wafdiga Etoobiyaanka diiradda saareen qodobada ammaanka iyo nabadda iyo waxyeelada haatan ka jirta dalkaasi. waxaa kaloo uu sheegay in dagaal ka socda Ethiopia uu weji qaldan ka bixinayo sumcadda qaaradda Afrika, wuxuuna xusay Ethiopia inay tahay mid ka mid ah dalalka Afrika ee aan la gumaysanin. dhinaca kale, hogaamiyaha TPLF Debretsion Gebremichael oo la hadlay wakaaladda wararka AFP waxa uu sheegay inuusan ka warhaynin qorshaha dhexdhexaadinta ee madaxweyne Museveni ku heshiisay TPLF iyo dowladda Ethiopia. sidoo kale, wafdi ka socda dowladda Ethiopia waxay socdaal howleed ku tageen dalka Kenya, iyadoo madaxweyne Uhuru Kenyatta kala hadlay howlgalka ay dowladda Ethiopia kula jiraan kooxda mucaaradka ee TPLF. sidoo kale, dowladda Djibouti waxay taageero u muujisay howlgalka ay dowladda federaalka Ethiopia ku xoojinayaan midnimada dalkooda. madaxweyne Ismaaciil Cumar Geeli ayaa taageeradaas muujiyay kadib markii uu la kulmay la-taliyaha qaaska ee Abiy Ahmed oo lagu magacaabo Goido Andargaji. daawadayaal xubinteena kale waxaynu kusoo qaadanaynaa diyaaradaha dagaalka ee Ethiopia oo duqeeyay caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle. diyaaradaha dagaalka ee militariga Ethiopia ayaa la sheegay in ay shalay duqeymo ka geysteen caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle ee waqooyiga dalkaasi. dhowr ilwareedyo ayaa xaqiijiyay duqeyntaasi, inkastoo aan la ogeyn khasaaraha naf iyo maal ka dhashay duqeymahaasi. wakiilka hay-adda qaramada u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR u joogta Ethiopia Anne Encontre oo iyadu ku sugan Addis Ababa la hadashay telefishinka Al Jazeera ayaa sheegtay inay saaxiibadeeda ku sugan magaalada Mekelle kusoo wargeliyeen duqeymahaasi, iyagoo sheegay in duqeyn diyaarad ka dhacday meel aan iyaga ka fogeyn halkii ay joogeen. waxay kaloo sheegtay inaysan ogeyn bartilmaameedka iyo cidda lala beegsaday duqeymahaasi. dhinaca kale, wakaaladda wararka Reuters waxa ay kasoo xigtay 4 diblomaasi ilo military inay diyaaradaha dagaalka ay bombooyin ku daadiyeen gudaha iyo duleedka magaalada Mekelle. ma jiraan warar sheegay khasaaraha ka dhashay, welina kamaysan hadlin dowladda Ethiopia arrintaasi. hogaamiyaha xisbiga TPLF Debretsion Gebremichael
waxa uu sheegay in ugu yaraan 2 qof oo rayid ah lagu dilay duqeymahaasi halka dhowr kalena lagu dhaawacay. qoraal SMS oo u diray Reuters ayuu ku sheegay intii ay socotay duqeynta Mekelle in sidoo kale magaalada kale ee maanta ee koonfurta Tigreega ay diyaarad drones duqeysay. magaalada Mekelle waxaa ku nool 5 milyan oo qof iyadoo in ka badan 25 oo kalena ay ka qaxeen ama ay u qaxeen dalka Suudaan. dhinaca kale beesha caalamka waxay ra'iisul wasaaraha Itoobiya ugu baaqeen in wada hadal nabad lagu dhameeyo colaadda gobolka Tigreega. saraakiisha dalalka Djibouti iyo Kenya waxay ku baaqeen xal nabadeed iyo in wado amaana loo furo howlaha samafalka aadminimo. dowladaha Yurub waxay qiimeynayaan xaaladda Itoobiya iyadoo dowladda Norway ay qorsheynayso inay ergey qaas ah u soo dirto dalkaasi. madaxweynaha hore ee Nigeria Obasanjo waxa uu shalay u soo baxay Itoobiya si uu dhexdhexaad uga geysto colaadda u dhaxaysa dowladda Itoobiya iyo mucaaradka TPLF. afhayeenkiisa oo lagu magacaabo Kehinde Akinyemi ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP inuu Obasanjo u soo baxay caasimadda Itoobiya ee sabab si uu dhexdhexaadiyo labada dhinac. afhayeenka ma uusan bixin faahfaahin dheeraad oo kale balse xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo ururka midowga Afrika ayeen inaysan warkaynin socdaalka Obasanjo ku imaanayo Addis Ababa. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambalelkan furo si aad u hesho muuqaalo ku xiisa geliya mahadsanid. fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro kambalelkan furo si aad u hesho muuqaalo ku xiisa geliya.